First of all, markaan sabarnay, we are very, very happy to meet such a great idea. Because AGA, we always had a principle, by Africans for Africans, by Somalis for Somalis. Scuffleland, we're tired of addiction, kan oo laga sugayo qof dibadda ku yimaado wax ku sameeya. Haddii aan doonayo dadkan tudhaxanayno wax kan waa samayn kaysiin, anagu marka horena anaguna sameyno ourselves. Markaas FursadFund decided to contribute into the greenhouse ki hadda la dhisayo. And we were so happy for them to join that. Dhinaca agriculture gorana, we decided 10% of waxa ka soo baxa greenhouse gorana u saacidino FursadFund iyada ay sii wado Soomaalida oo dhan meel kasta ay u heliso isku keento. So FursadFund waxaan doonaynaa the concept kii aan haysanay ay sii wado markay dadku isku heliso ay isku keento. And we always support them, and hopefully they continue supporting our effort. People used to say Somalia waxay iska baqdaan in waxay la isku dayado ama they copy each other. Anagu we're not the opposite. We want everybody inuu ku dayado. Faa'iidada arko ayagana ha samaystaan haddii doonayaan faa'iido. Waayo dhinaca agriculture food waa multi-million-dollar industry. And anakana we are the worst, we are failing. We're losing $1 million worth of industry. Waayo dad dibadda hadda cuntada inta sameynaa. So potential is unlimited. And the only faa'iidada imaanaysa inaan isku imaano. Dhinaca beeraha, reer beeraha inaan isku imaano. Waxaan ku heli adigan ii helisid. Waayo our competition keena waa dibadda ka imaanaysa. It's not labadeena competition ka. We have to encourage this kind of concept, unity. And we are trying in our beeraha isku keena. FursadFund waxaan doonaya dadka dhan isku keeno dhinaca success-ka economy-ga haddii tahay education-ka oo haddii tahay any kind of industry. Inshallah concept-keena, you know what I mean, maybe 3, 4, 5 years isku keeni doonaa beerihii Soomaalida oo dhan oo market-koodana saacidsan doonaa. That's our goal.